قصة عجيبة قبصة ولاد كل أورن جري أحمد ابن مهدي عوري أنا هبين بغداد مريا هبين ماسك الله وين يا حافظ بغداد كمذا بهوني مر يقول صوت جري مركاسي إسلامتي وإيدنا شيغتي وحيت جري wadaado imtixaan yar baa igu dhacay waa dhaweyd baan in kufsaday xaamilan ashinkayga baa dhamaaday markii su'aal la iga dayn waayayna adaan ku sheegtay waxa i qaba Ahmed ibn Bahdi niyahu ilaahay baan kugu dhaarshay hadii la ka weydiiyo ha inkirin bay tiraay dafiri balawsha u firs adoo inta cishaa tukatay bilaal ka dhaqaaqay وإذا يسيس عضا هذا قبل حجاب وضوء كويس دكتور نيو حاملان هاي عذر كاسرنا يقول دعاي هبله هبل بلا يجدا ريه هبل ونصب شقته وليبا عدة يطيقوس كده ما يشقت ما قاعد ما يشقت وحيد كده هو شاسا يقول دعاي هذا أنا شن كيجي بعد ما ضو سقال كيجي برود بعد ما ضي فرير كنا وحنقول وداد كاسا يقول صدق يقبوا إلما سلان أورولي هاي هذه اللي يكاوي ديو نيو لا بنقول دار شيء هاي فضحين ومحضي وحاسكي أحمد مهدي وحوري انتان يابي ووحن كو هذا قران واي بان كدقاقاي با iyadoo taagan oo ma jawaabin buur wadadii baan kala leexday xaqaasan iska aad dhowr habeen kadib way u mushay gabadhi wiil bay dhashay anoo masaajidka xaafadda ku tukado iska fadhiyo yaaba liyahan baliyay buuri aad waxaan ugu farxsanay wiilka ku dhashay imaamkii masaajidka odaygii xaafadda wadaadihii iyo qaanay kulli maxay u yimaadeen tahniya hanbaliyo lagu hanbaliyaynayo wiilka u dhashay wiilkana yaa u dhalay gabadha habeen dhawood u istaagtay wadada tiriniyo way ceebayni dhibkaas dhacay waan ku sheegtay yani u fiirsad culimadu waxa qabsanay waxaan iska dhigay buu wax ku farxay wiilka u dhashay muxuu sameeyaa wiilkii ii dhashay wax ku farxay baan muujiyay waan xamdiyay kadibna imaamkii masaajidka yaan 2 diinaar u dhiibay waxaan dhibay lacagta u gee islaanta xoogo waan isku dhacnay inaan u taga mar rabee 2 diinaar u gee ha ka dhigato umalbax ka dhigatay waa dahab 2 diinaar waa lacag aad u fara badan waa 9 gram oo dahaba 6 shan ugu dhufta lacag yar ma aha marka biil waan dhiibay buuri bil walba biilkeedaan dhiibahay buuri imaamka saadkan ugu dhiibaa 2 sano markay gabadha sida ku joogtay yaa wiilka dhintay buuri wiilkii raaba dhintay 2 sano bil walba biilkeeda iyo marashiin masruufan u dhiibahay rag waxa qabsaday culum waxay soo mareen idinkuna nijaasi hay sheegan ma dhihi lahaydeen banu maynay shaqul Soomaali ilaahay bay ku dhaarso waxay tirahay fadhiixayn awoogan wuxuu leeyahay adu waxaad ka sheegaa wuxuu kuwa dhaleen baa inkarayaan kuwane ku arutay dhaleen baa gabdhaha ku dafirhayaan ee meersadan bay ku dafirhayaan dib ma lehe marka 2 sano markaan biilkii aan waday yaa wiilkii tii alla ku timid hadana xaafadii imaamka reerku dhan baa isoo tacsiyay buu sheekh hebelo sheekh Ahmedo inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib waan ismurjiyay buu anu marka nin wiil ka dhintay baan iska dhigay geeri ayaan meesha soo dhigtay buu maalma kadib bay gabadhii say ugu soo heshay baa hadana way ii timid anoo socday qabatay dhab waxay tiri Ahmedow khayr Allah ku siiyo ceebtada asturta Allah ceebtada asturo maalinkii ummu lacagtan u dhiibay ilaa 2 sano biilkan u dirahayay oo qandi ku waday ee keentay buu oo tiri dahabkaad oo dhan waa ka inay ceeb asturtaan rabay biil iyo marashiin masruuf iyo adduunyo kaama rabin bayt wana ceeb asturtay ceebtada Allah asturo lacagtadina waata حارب العقتن ويل كان كحيلنا يويل كان إسكالها أصدق هذو دنتينا هذا بحال كيساله كقادم هاي هو لك تيدو عيسى يدف كذا قاتي الله بطيبور ساس عن ربي وأسطوري بارك محوسم شيخ هل كان وياه ده بينبو الشيخ سوما
muxuu sheegay inuu gabadha muslimada ceebteeda asturo oo sheegatay in la kufsaday una egtaa inay sidaa tahay inuu wiilkaas ugu dhalay buu muujiyey intaasoo biilahayay markuu geeriyooday buu iyo geeri camirtay iyo nin wiil ka dhintay lacagtina waagi dambe waa ka sameeyay ninkii hadda intaasoo dul qaadanay lacag buu qaadanaya wuxuu lacagtan ilmahan ku xidhiidhinayay asagaana iska lahaay hadduu geeriyooday dhaxalkiisii adaa iskale qaado saas ku dhambeeyay yani wax walba rag qabsanaya dulqaadkaas iyo muslimiinta ceebta in la astura la dooraya in la qoqodo la daba gaalama doonay sida uu sheegay iska ilaaliya hawsha ayada ah kuwa dhashay ninka dafirana nas gooniyo wiciid goonaba ku yimid halis way hawsha ayada ya sheekhay dahabi baa ku sheegay siyarka si aclamnu mala dahabi baa ku sheegay axmed mahdi gali oo siyar ka fiir toos bad warkaysa qisada insha Allah